haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar saad noogu xidhnaato muuqaalka dadka hesho like saar faalladaada noo reeb sheer garee oo sii gaarsii dadka kale. maalin walba, toddobaad walba, bil walba, sanad kasta waxaad ka maqashaa deegaankaaga, gobolkaaga, dalkaaga ama guud ahaan adduunweynahaba dhacdooyin argagax leh oo loo geysto haween kala duwan oo ah kufsi, jirdil, mararka qaar waxay gaadhaa in naftada laga gooyo. dhibanayaasha lagu ciyaaray mustaqbalkooda, la burburiyey naftoodii, loona geystay dhibaatada jidheed, maskaxeed iyo nafsiyeed, mar walba ma helaan cadaalad. in badanna waxaa dhacda inay tirsadaan in loo cadajugleeyo, laga gacan sarreeyo, sharciga la gato, amaba cid aan iyaga ka mas-uul ahayn amaba aan ka naxaynin oo magac qabiil, tolnimo iyo waxyaabo noocaasa kaga faa'iideysta xaaladooda, la heshiiyo dambiilaha oo fasaxa, iyaguna sidaas ay ku noolaadaan murugo iyo dul fara badan. qaarkood iyaga ayaa gacantooda isku dila oo nolosha isdhaafiya, qaar kalena murugo iyo silic fara badan ayaa ay ku noolaadaan iyagoo ku dhex ceebaysan bulshadooda, taas oo dhaawac badan u geysata mustaqbalkooda iyo noloshooda. maanta waxa aynu ku soo gudbinaynaa muuqaalkan qiso xaqiiqo ah oo ka dhacday waddanka Maqrib ama Morocco, hadba sidaad u taqaano. sheekadanu waa dhacdo run ah. waxaa si loo bareeray in la bedelo magacyada dadka iyo goobaha sababo sharci iyo akhlaaqeed darteed. sheekadan waxaa laga soo dhex saaray ama ay ku kaydsan tahay faylasha booliska dalka Morocco, waxaana qoray macallin tababaro ciidan oo ka tirsan machadka tababarka ciidanka ee dalkaas Morocco, laguna magacaabo Cabdilatiif Bahmoush. sheekadanu waxa ay ku saabsan tahay gabadh la kufsaday oo si xun loo silciyey, markii dambena u argoosatay hab dhaafsan sharciga, iyadoo u arkaysay markaa in aan dariiqa sharciga aanay xaqeedii ku heli karin. gabadhaas oo magaceeda la yidhaahdo Faaduma Baakhalid waa tan sheekadeedii. Faaduma Baakhalid waxa ay ka timi degmada Wazaan, waxaana ay timi magaalada caasimad dalkaas ee Rabaad kadib markii ay dhammaysatay shahaadadii heerka koowaad ee bachelorka oo ay ku baxday gareydka A. waxa ay doonaysay inay sii wadato cilmigii ay hore u baratay oo ah cilmiga caafimaadka dawooyinka ama loo yaqaano pharmacology-ga. waxa ay bilowday waxbarashadeedii heerka labaad. waxa ay xambaarsanayd rajo aad u weyn oo ah inay maalin uun ku noqoto magaaladeedii yarayd ee Wazaan, kana qayb qaadato horumarinta caafimaadka iyo yareynta xanuunada ee dalkeeda. waxa ay ahayd riyo aad u qurux badan oo ilaa carruurnimadeedii ay ku riyoonaysay. qof kasta oo inaga mid ahi carruurnimadiisii marka la weydiiyo maxaad noqonaysaa mustaqbalka, waxa uu oran jiray waxaan noqonayaa macallin, dhakhtar, injineer, duuliye iyo wax lamida. waxa aynu ku riyoonaa xirfadahaas sharafta leh. Faadumo waxa ay ahayd mid ka mid ah carruurtaas leh riyooyinkaas quruxda badan. sanadku waa 2004. waxa ay jartay Faadumo oo ka gudubtay qaybo waaweyn oo ka mid ah geedigeedii waxbarasho. hadda waxa ay ku jirtaa sanadkii ugu dambeeyay. waxa dhow in ay guulaysato oo ay gaadho riyadeedii. waa galab, waa 25 bisha Oktoobar. waxa ay maraysaa Faaduma Baakhalid meel u dhow kaalinta Ad-Durqiya
ee xaafadda Yacquub al-Mansuur magaalada caasimadda ah ee Rabaad. Kadib markii dhinaceeda lagu qabtay gaari madow. Gaarigaas waxa wada wiil dhalinyaro ah oo ku labisan muraayado madow. Isla markii ay jaleecdayba waxa gaariga ka soo degay laba nin. Waa ay qabteen, waxay u jiideen dhinaca gaariga. Waxa isku dayday inay qayliso, laakiin ciidamo maqal. Iyaguna dhag umay jalaq siinin inkastoo ay aad u qaylinaysay. Waxa ay geliyeen kursiga dambe. Gaarigana si xawli ah ayuu dhinaca koonfureed ugu dhaqaaqay. Waxay Faadumo la socotaa markaa inuu gaarigu u dhaqaaqay oo ay afduubayaashu ula dhaqaajiyeen dhinaca wadada Daarul Baydaa. Waxay isku dayday inay qanciso oo ku qanciso inaanay ahayn gabadh xun oo dabad wareega. Waxay u sheegtay inay tahay arday jaamacadeed, waxayna ka bariday inay iska sii daayaan. Markaas mid ka mid ah afduubayaashii ayaa si xoog ah uga dharbaaxay dhabanka. Faadumo ma ahayn qof weligeed la dharbaaxay. Waxa ayse markaa yaqiinsatay in ay afduubayaashu yihiin kuwo wax kasta ku dhaqaaqi kara. Dariiqa kaliya u furnaa wuxuu ahaa inay awoodeeda oo dhan isugu geyso sidii ay xog uga heli lahayd ciddan afduubatay iyo meesha ay u wadaan. Gaarigii ayaa dhaqaaqay. Waxa uu u socday dhinaca magaalada Tamaara. Marka uu gaarigu marayo xaafadda Yaxya Zaciir ayaa uu gaarigii joojiyay kii muraayadaha madow xidhnaa. Waxaana uu ku joojiyay amar uu ka helay kooxda. Gaarigii ayaa laga soo dejiyay. Markii dhulka loo soo dejiyay ayaa indhaha laga xiray. Waxayse markaa xasuusnayd in magaalada Tamaara la marayo. Markaa wixii ka dambeeyay waxba may arkaynin. Waxay isku dayday balse ay u garato meesha loo wado in ay adeegsato garaaca wadnaheeda si ay u ogaato dhererka masaafada ay martay. Garaaca wadnaheeda ayay bilowday inay tiriso 526 jeer. Markii uu wadnaheedu garaacay ayaa gaarigii istaagay. Waxay maqashay sanqadha albaab bir ah oo la furayo. Gaarigii ayaa galay, wuu istaagay, waa la baktiyay. Way soo degeen, iyadii ayay gaarigii ka soo jiideen afduubayaashii. Dhulka ayay istaajiyeen, indhaha ayay ka fureen wixii kaga xidhnaa. Waxa ay amreen inay istijiso oo ay sida ay doonayaan yeesho, haddii kalena aanay noolaan doonin. Waxay ugu hanjabeen haddaad rabto noloshaada annaga waa inaadna maqashaa. Waxay ahaayeen 4. Waxay isu daba mareen inay fursadaan. Waxay u yeedheen mid 5aad. Umayna haynin, way jabdeen, way baabi'iyeen, way fursadeen. Si bahalnimo ah ayay 3 casho u haysteen. Waxa ay ilaalinayeen mar walba oo ay isu daba marayeen Faadumo si aanay u baxsanin. Markii ay ka dhamaatay wixii sahay ay haysteen cunto iyo cabitaan ayay ku tashadeen inay isdhaafiyaan. Indhaha ayay mar labaad ka xidheen sidii markii hore oo kale. Gaarigii ayay ku soo tuureen. Albaabkii birta ahaa ayay fureen. Gaarigii waa soo baxay. Waxa uu ka laabtay dariiqa al-Isfaltiya la yiraahdo, mid ka mid ah dariiqyada waaweyn ee magaalada Tamaara. Dabeetana gaarigii intay istaajiyeen ayay si degdeg ah daaqadda u fureen. Faadumo ayay dhulka ku tuureen, waanay dhaqaajiyeen. Waxaa soo martay daqiiqado la ahayd sanado ka hor inta aanay dareemin inay soo ceshatay xorriyaddeedii. Waxay ku fikirtay inay tagto oo ay ku laabato magaaladeedii Wazaan, una sheegto qoyskeedii dhibaatadan soo gaadhay. Laakiin maya, way ka laabatay. Sidee bay ugu sheegi kartaa qoyskeeda ceebtan iyo dhibaatadan la soo kulantay? Waxa luntay sharafteedii, waxa luntay inannimadeedii ama gabadhnimadeedii.
waxa ay ogeyd in dhibaatadan xanuun iyo murugo aad u daran u sababayso qoyskeeda. waxay markaa go'aansatay inay dagaalkeeda keligeed ku ahaato. waxay u dhaqaaqday dhanka xarunta dambi baarista ee magaalada Tamaara si ay u gaarsiiso dhibaatadan la soo diristay. waxa uu ahaa jawaabtii dambi baarihii qaatay in ay sheegto magacyada dadkii afduubtay ee korsaday, meelaha laga heli karo ciwaanadooda, ay keento shahaado caafimaad oo caddaynaysa kufsigeeda. bal ka waran, sidee bay dareemaysaa gabadh yar oo dhalinyaro ah oo la kufsaday saacado ka hor, ku dhacday dhibaatada ugu xun ee qof dumar ah la kulanto. Faadumo waxay u arkaysay hadalkii dambi baaraha inuu yahay ihaano iyo ceebayn la kulantay. waxay go'aansatay in ay kaashato garyaqaan si uu xal sharci ugu helo dhibaatadan la soo diristay. jawaabta garyaqaanku wax badan kama duwanaanay kii dambi baaraha, taasoo mar kale niyad jab ku noqotay Faadumo. waxaana ay aragtay Faadumo ama ay dareentay in dhanka sharcigu uu kula dhaqmaayo dhayalsi iyo fudaydaysi. xaaladeedan aad bay uga murugootay, waxaana ay markaa go'aansatay inay u dhaqaaqdo dhanka kale, dariiq baalmarsan dariiqa sharciga ah oo ay iyadu xaqeeda ku dhacsato. la soco qaybta 2 iyo sida ay Faadumo u dhacsanayso xaqeeda.